waxaa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal laga xusay munaasabada maalinta caalamiga ah ee daweeqaanka adduunka oo ku astaysan 25 bisha September oo si sanadle ah looga xuso gabi ahaanba caalamka. waxaana munaasabadani si weyn uga qayb qaatay maamulka macallimiinta iyo waliba ardayda kala duwan ee wax ka barata kulliyadda daawada ama farmasiga ee jaamacadda Camuud. sidoo kale waxaa munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka oo hormuud u ahaa isuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Hussein Aadan دينك كلية الفارماسية جامعة عمود دكتور عبد الرشيد داهر أي مسؤولين معلمين مرتد شرف يولي بعرضي كلية الدعوة جامعة عمود وجهري وحال كاسك حلي قار كم إذا معمولك يا معلمين كلية الدعوة جامعة عمود يجون بدامية مهمة دائلة ذا هاي معلم تاني وحين المامين وحن الله هاي مرلبات هابي وفارماسيستي دي ما أنت وحن حسينا maalinta daweeqaanka adduunka waxaan jecelahay oo rajeynaya in sanadada soo socdana sidaas iyo si ka fiican ay noo xusno marka ardayda waxaan rajeynayaa iyo dhammaan tiimamka caafimaadka namba isku xidh iyo inuu boolka isku hayay oo adkaado wada shaqayn fiican yeeshaan bulshada waxaan wax kaga bedeli karnaa waxa weeyaan haddaynu fariintan gudbinayno inaynu si wada jira u wada gudbino qofka aqoonta u leh dawladda warbixinteeda ku siin kara waa qof farmasisti qof neerisi kuma siin karo dhakhtarka isaga ma helaysidba laab kuma siin karo cid kalena kuma siin karto babligaatana kuma siin karo laakiinse prescriptionka waxa ku qoran xogteeda waxa ku siin kara waa farmasistiga weeyaan talabaad waxa weeyaan farmasistigu waxay xoojiyaan programyada ama mashruucyada caafimaadka ee bulshada laga dhex abuuray iyagoo doorkooda muhiimka ka qaatay waxa ugu horeeyay caafimaad waa daweeyahay ama daweeye magacii koowaad u lahaana ama wadaad ha noqdo ama sheekh ha noqdo ama waxaa la oran jiray oday faaniye ha noqdo oo dadku ay u doonan jireen inuu daweeyo wuxuu ahaa daweeqaan daweeqaanka unbaa isa sii yar shaqadiisa badiyo ayshii baadha samaystay oo xanuunada gaar ugu baadha isagii unbaa haddana sii ilbaxo qayb qalliina samaystay oo farmacologicalka loo yaqaano ama surgicalka isagii unbaa isa sii baahiyo caawiye samaystay oo nersina isaga isa sii baahiye oo health promotion ama kor u qaade iyo kobciye caafimaada samaystay oo public health care sidii kolba laysku fidinayay ayay gaadheen intaas tiriya cadad lahayn oo caafimaad ee maanta jira ee magacda kala duwan hadday yihiin maxay ahayd public health hadday yihiin nursing dental laboratorist dhammaan waxay ka soo farcameen odaygii keliya hata ee daweyn jiray qofka buka marka waxaan ku faanaynaa inaan caafimaadkoo dhan jiritaankiisa aan anagu iska lahayn bilow iyo dhammaadba maantana waan ku faraxsannahay oo waan ku faanaynaa inuu caafimaadku sidaa u fiday uu u yeeshay gacmaha faraha badan alxamdulilah inaan caawa halka joogno aan u joognana inaan weyneyno daaweeqaanka weyneyn waxay noogu filan inaynu ognahay maanta bulshadeenna goobta keliyaata ay marka koowaad ay bukoodaan tagaan inay tahay farmasi waxaan aad u bogaadinayaa oo habeenkan uga qayb qaadanaynaa systemka caafimaadka kaliya ma xoojinayno ee waxaan xoojinaynaa jiritaanka iyo nolosha bulshadeena marka haddii aynu nolol qof noolayno oon badbaadino waxaynu nahay dad bulshadii badbaadiyay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mutasharaftii ka soo qayb gashay munaasabadan iyo waliba ardayda kulliyadda farmasiga jaamacadda Camuud iyagoo halkaasi ka soo jeediyay hadallo iskugu jiray hambalyeyn iyo waliba dardaaranno caafimaad waxayna yiraahdeen marka runtii aad baan maalinta weyn u bogaadinayaa macallimiinta ardayda dhiga kulliyadda oo intuba isku duubni soo abaabushay iyo jaamacadda Camuud department-keegan aynu ka wada tirsanahay la'aanteed halka ay soo gaadheen baan la jaamacadda Camuud hadayna hesheen resource-kan ama dadkan mar walba u heelan in macnaha ay talaabo kasta iyo horumar kasta iyagu isku xilqaamaan kulli waxa la yaabo dadka farmasiga ama dadka daawayaqaanka baa dad runtii qofka dhakhtarka ah xitaa looga kalsooni badan yahay waayo wada arkay farmasiga markaan qofku ugu tagno
qofka patient wuxuu weydiiyaa qofka farmasiga fadhiya 20 jeer dhakhtar ahaan farmasigu waa saaxiibkayga noogu dhow waayo qofku waxa ugu badan oo ka caawiyo waxa weeyaan waa xanuunku markuu ka caawdana micno ma sameynayso hadduu ku imaado ood maanta ka tiraahdo waxa ku haya waxa la yiraahdaa pneumonia la yiraahdaa waxa ku haya waxa la yiraahdaa heart disease baa la yiraahdaa yani micno ma sameynayso inaad magac siiso qofku muxuu kugu yimid dawadoon soo su'aasha ugu muhiimsan ugu socdo waxa weeyaan طيب waxaas baad iga heshay maxaa laga qaban karaa magac kugu soo doonay dawo ku soo doontay dawadiina waa maxay waa sun waxaynu adeegsanay waa chemical goormaynu dawo oranayna waxay dawo tahay marka ay regulated tahay marka ay controlsan tahay ay maamulan tahay yaa maamulaya oo kala goynaya xadkii sunta iyo xaddigii daawada shaygu markuu aanu ku dilayn ayuu ku daweynayaa saasba markaa medicine ومجاعة ku kasbanaya hadii kala qofku waxaad siisay waa soo farmasist baan ahay bulshada u fidiya fariin caafimaado faa'iido laga helo cudurrada ku faafay ku fidaan dadweynaha wacyigelin u faydnahay ana farad dadweynaha inay feejignaadaan bulshada fayoobina farxadeeda weeyaan filka ay nageegiyo facayga dambeeyo waxaan farayaa fakaltigan hamoogaan موضوعنا عاوة كان نقول لك سنة إذا كنت فرنسيا كل يوم مسؤولية يوم في الأسبوع يجيو يوم في الأسبوع وحوينا خلنا يوم الأسبوع أيام شغالة أيام دورية واحد كتير إلى طريقة بدل بشلة كسوق سارة كسوق سارة حاجة دوي أي نوع مسؤولية الأمان مسؤولية الدولة بحيث هي ما علمنا تحمسها sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay dhiinka kulliyadda daawada ama farmasiga ee jaamacadda Camuud Dr. Cabdirashiid Daahir Aye wuxuuna yiri dawadu sida ogtihiinba waxyeelana way leedahay waxtarna way leedahay labadaasiba waxay u imanayaan boqolkiiba 80 bulshada waxay ku xiran tahay waa farmasi waxay la dhilgarayaan waxay dawada ka soo qaataan waxay magaranaysa xanuunadooda iyo tabashadooda u sheegaan waa farmasiste ugu dambeyn waxaa xafladani soo afmeeray isuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Xuseen Aadan isagoona tibaaxay muhiimadda uu leeyahay qofka daweeyqaanka ah waxaana hadaladiisii kamid ahaa farmasigu kaliya dawada uu iibiyo dawada uu dhakhtarku soo qoro ma prescription ku kaliya ma qoro laakiinse waa sugaha dawada rasmiga ah ee qofku uu kala baxay isbitaalka ama farmasiga ama klinika waa qofka sugaya weey macnaheedu sugistaas waxa soo hoos galaysa inuu dawada ay tahay dawadii saxdii qofka ma yahay qofkii saxdii waqtiga uu qaadanay waqtigii saxdii ma tahay waxa soo dhabaa sugista soo hoos galaya inta waxa dheer farmasigu waa qofka bixiya talada inta badan bukaanada qofka ku xidhan qofka farmasiga weeyaan waa qofka talada bixinaya ee siinaya bukaanka dawadan iyo qaabka uu qaadanayo iyo waxa uu qaadanayo cuntooyinka uu ku isticmaalayo dawooyinka la isticmaali karo waxa ay qofka u sheegaya dhakhtarka ma dhakhtarku waxa laga yaabaa inuu xilliga uu bukaanka u arkayo kaliya uu eego investigationka oo halkan ku qaato iyo history taking uu sameeyay laakiin qofka farmasiga xitaa waa qofka yaqaana qofkani ma yahay qofkii iibsan karay dawada nisama qofka yaqaanay dhakhtarka markuu dawada iska soo bixiyo qofka dawada baahida iyo dhibaatada qofka haysto ogaada inta badan inta aan u aqaanay oo qofka farmasiga weeyaan marka in maalin loo asteeyo weyn oo la xuso maalinta farmasiga adduunka la yiraahday waa wax mudan ma leeyahay